shalay waxaad ahayd canug yar oo caruur ah, waxba aanan kala garanayn. Maanta waxaad tahay qof dhalinyaro ah, wax kastana fahmi kara. Ma ogtahay sababta? Sababta waxaa lagu keenay dunida waa inaad ka dhabayso hadafyadaada iyo tan Rabbigaagu kugu lahaaday adiga. Berrito waxaad noqonaysaa qof da' ah oo aan awoodi karayn inuu dhaqmo sida dhalinyaronimada. Maanta waxaad tahay dhalinyaro wax kasta samayn kara, berrina aan awood u lahayn. Noloshu adiga kuma istaagi doonto, dhalinyaro ahaw ama qof weyn ahaw. Iyadu way soconaysaa, waxayna markasta soo dhaweyn doontaa dad cusub, waqti cusub, marxalad cusub. Waxay qaabili doontaa dadyooga kala duwan, lehna wejiyo kala duwan. Adiguna waxaad halkaani ka tahay musaafir. Fashilkaaguna waa inaad ka daciifto, kana rajo dhigto hamigaaga, socodkaaga. Waxaa jirta oraah oranaysa, haddii aadan ordi karin, soco. Haddii aadan socon karin, gurguuro. Waa oraah ka tarjumaysa inaadan marnaba waqtiga uusan ku celin. Waa oraah kuu sheegaysa inaadan ku mashquulin waqtiga, balse aad raadiso hadafkaaga. Waxaad maankaaga gelisaa in daciifnimadaadu ay tahay cudurka adiga kugu hogaamiya fashil. Haddii aad sugayso waqtiga ku wanaagsan qabashada shay ama hawl, waan ka xumahay, waxaad diyaarsatay baalka xumaa ee noloshaada. Ogaa waqtiga ku habboon waa hadda, maahan beri, manahan saa dambe. Hadda ayaad taagan tahay oo aad dhalinyaro tahay, muhiimadu waa ma u tahay diyaar inaad samayso waxa aad doonayso. Hana u fiirin ma ku habboon tahay. Waqtiga aad maanta haysato, ogaa maalin aadan haysan ayaa imaan doontaa, mana heli doontid mid la mid ah waqtigan. Haddii aad waqti u baahan tahay, waa hadda. Hadda ayaad samayn karaysaa. Waqtiga dhammaan dadku way wada haystaan hadda, laakiin dhammaantood si kala duwan ay u adeegsadaan. Sidaan anigoo isticmaalo way ka duwan tahay sidaad adigu isticmaasho. Tani waa adiga iyo noloshaada, waxayna soo dhammaanaysaa inta u dhaxaysa daqiiqad gudahood. Taasna maahan mashquulkaaga, muhiimadu waa inaad ka dhabayso ujeedkaaga. Ogaaw, waqtiga dhammaanteen waana loo hadiyadeeyey, manahan inaan ku loos garayno, waxaana micno u yeelay nolosha. Manahan inaan ku lumino meel fadhi. Waa inaad ku shaqaysato, aad ku soo saarto wax noloshaada faa'iido u leh. Waana loo hadiyadeeyey, laakiin hadiyadan haddaan lagu camal qaban way lumaysaa. Waana taas waxay ugu duwan tahay hadiyadaha kale. Waqtiga waa kuu muhiim adiga, waxaana kugu ogahay inaad ka faa'iidaysan doonto, aadna ku qabato wax kasta oo aad rajaynayso. Insha Allah maalin ay kuu rumoobi doonaan dhammaan riyooyinkaaga. Insha Allah maalin ayaad guulaysanaysaa. Waan ku rajaynayaa guushaas. Salaam.